أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين هل لنا الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين في إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وبعد. والله الصوماليين meel walbo aad joogtaan Allah idin badbaadiyo, Allah idin dhowro. Mawduuca aan doonayo inaan halkan idin kaga soo gudbiyo waa dacuuha fa innaha muntina. daaya ka taga ka fogaada waa wax qurmoon oo uraye talo waa maxay waxa laga fogaanayaa waa maxay waxa la isaga digayaa ha laga dheeraado la leeyahay waa maxay yaase dhahaya walaalayaal sidaad ogsoon tihiin waxaa jira cudur ina wada hayo idaylkeen, cudur aynu la ildarannahay, cudur ina kala geeyey, cudur in badanoo dadkeenii ah xabaalgeliyey, cudur idaylkeen ina wada haya. u kaalay xabiibka sala allahu calayhi wasalam wuxuu maanta daweynayaa, horena wuxuu usoo daweeyey oo uu maantana daweynayaa, daweyna doonaa ilaa qiyaami saaca cudurkan. u kaalaya daawadiisii. cudurku waa qabyaalad, qabyaaladu waa qurun. aniga ma dhihina xabiibkaa yidhi sala allahu calayhi wasalam dacuuha fa inaha muntina. walaalayaal waad ogsoontihiin heerka maanta aynu taagannahay ee qabiilku ina joojiyey. halkuu qabiil ina keenay waad garanaysaan. yah dadkii waxa kala geeyey waa qabiil, kala irdhayey waa qabiil, kala fogeeyey waa qabiil, laysugu uurxun yahay waa qabiil. qabiil baa miisaan noo noqday, qiyaas noo noqday. haddaynu wax dhisanayno, wax qaybsanayno, wax baranayno, wax sadaqaynayno, qabyaalad ayaa qiyaas noo noqotay. waxa loo baahan yahayna ma aha, waa camalu shaytaan iyo ficil jaahili ah weeyaan. ilaahayna wuu inaga kaafiyey, laakiin weli faraqaanu haysanaa. aan mawduucayga hore u galo. waa ka uu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaas inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum. eeg dad yahow, waxaanu idinka abuurnay lab iyo dhadig xaggii. aabba la yidhaahda aadam iyo hooyo la yidhaahda xawaa ayaan idinka abuuro, aan idinka sameeyey. kadibna markaad badateen shucuub iyo waxaanu idinka yeelay qabaa'il. hadalkaa aad u dhegeyso. qabaa'ilka aad tihiin idinka ma aha, aabbayaalkiina idinkama yeelin. allah dhahaya wajacalnaakum, adiga gabadhaadan, wiilkaagan, odaygaagan, intiina addoommadii allow, allah idin dhahaya wajacalnaakum, waxaanu idinka yeelay shucuuban wa qabaa'il. qabaa'ilku waa rag ku abtirsada aabbo ayaa qabaa'il ah. marka la batona oo qabiilku bato qabaa'ilo fara badan shucuub bay noqonayaan, waa qaran. markaa annagaa idinka yeelay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'il. laakiin maxaanu shucuub iyo qabaa'il aanu idinkaga yeelay markaanu idin abuurnay? litacaarafuu, in aad isgarataan oo aad is aqoonsataan, in xigto iyo qaraabo la noqdo, raxim in la yeesho ayaanu idinkaga yeelay shucuub iyo qabaa'il. soo qabiilku ceeb ma aha, qabiilku ceeb ma aha, qabiilku waa ceebka saliim. qabiilka waxaa laisku guubaabiyey in la barto, laisku dhiirigeliyey in ubadkeena aynu barno. waa ka uu dhahaya xabiibka xadiid saxiixa sala allahu calayhi wasalam tacalamuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum.
ansaabtiina waxaad ka barataan iyo qabaa'ilkiina inta aad kaga xiriirinaysaan ehelkiina iyo xigtadiina qaraabadiina iyo raximkiina intaad kaga xiriirinaysaan idinkuna barta awlaadiinana bara maxaa yeelay waxaa ku xiran in qabiilkeenna aynu baranno oo weliba aan baranno inta ehelka lagaga xiriirinayo waxaa ku xiran jannadeennii baa ilaahay ku xiray waa ku dhahayo laa xabiibka sala allahu calayhi wasalam ha hilmaamina ku salli xabiibkaaga sidaa wax kuu baraya kuugu caddaynaya waddadaadii liibaanta waa ku dhahayo laa yadkhulu ljannata qaaticu nin raximkiisii gooyey xigtadiisii hoose gooyey qaraabadiisii gooyey marnaba ma gelayo janno xataa ma orinayo janno so inaan barana qabiilkeeni maxaa ku xiran jannadeeniyaa ku xiran laakiin waxa la diidan yahay waa maxay waxa la diidan yahay waa in qabiilkaa uu noqdo diin in uu noo noqdo yah diin in uu noo noqdo kan laisku xiriirinaya kan wax laisku siinaya kan laisugu naxariisanayo ya kan shaqada lagu helayo kan dadka lagu soo dhaweynayo ama lagu fogeynayo ya in uu noqdo qabiil qabiilka marka sida khariban sida xun loo isticmaalo maxaa la yiraahdaa qabyaalad waa fahamtay so waxaa la diidan yahay waa maxay waa qabyaalad ee lama diidana in aad qabiilkaaga baratid qabiilka aad baranaysid waxaa ku xiran xiriirkaa ka soke waxaa ku xiran xuquuqyo fara badan iyo waajibaad fara badan xuquuq dadka kuu dhow dhow ee xigtada ah ay kugu yeelanayaan adiguna aad ku yeelanaysid iyo waajibaad kugu fuulaya iyagana ku fuulaya xuquuq iyo waajibaad cibaadadeeniibaa qabiilka ku xiran marba haddii jannadeeni uu ku xiran yahay cibaadadeeniibaa ku xiran soo ma ogid qabiilka taada kale yaad guursanaysaa yaadan guursanaynin yaa maxram kuu ah yaanan ku ahayn maxaa keenaya qabiilkaa keenaya sidoo kale haddii kale oo aadan qaraabi iyo aqooni raxim iyo qabiil habaryartaa iyo eedada ayaad guursanaysaa soo ma ogid iyo walaalaha kalead guursanaysaa dadkaasaad guursan dembi baa iman marka kow waxaa ku xiran diyadii ayaa ku xiran iyo magtii soo ma ogid haddaad si gefa wax u dishid xoolahaaga laga qaadi maayee waxaa laga qaadayaa magta waa qaraabadaadi iyo ehelkaagi haddaadan aqoonin iyaguna aanay ku aqoonin dee xabis baad ku uraysa oo waa lagu dilayaa soo ma ogid soo noloshaadiibaa qabiil in aad baratid ku xiran qabiilka waxyaabo fara badan ayaa ku xiran xagga inoo dhig marka qabiilka maxaa ilaahay inooga yeelay qabaa'il iyo shucuub waa litacaarafuu marka ma aha waxa lagu kala sareeyo qabiil ma aha waad garatay dadkiina orobo ku koray galbeedka ku koray ya ee aanan qabiilba rabin ama waalidkood uu ka gaabiyey inay qabiil idin baraan ayaan la hadlayaa qabiilka waxaa ku xiran noloshaada qabiilka waxaa ku xiran waajibaad iyo xuquuq waxaa ku xiran jannadaada waxaa ku xiran badbaadadaada iyo noloshaada qabiilka uu ku xiran yahay kow walaalayaal raalli hada marka waxa la isku xiriiriyo ogow waxa lagu kala sareeyo qabiil ma aha marka qabiil ma aha waxa lagu kala sareeyo qabiil ma aha waxa la isku xaqiro qabiil ma aha marka la isku soo dhaweeyo oo la isku cayriyo qabiil ma aha u kaale marka qabyaalada maxaa keenay ilaahay baa ku dhaariyay dhalinyaro iyo addoommadii allow idaylkiin rag iyo dumar culimo iyo caamo madax iyo shacab idaylkeen kaalaye maxaa keenay maanta in annagoo ilmihii aadam ah annagoo shucuub iyo qabaa'il ah dad iswada dhalay ah aabbo keliya ka soo jeeda iyo hooyo keliya maxaa keenay maanta in qaar naga mid ah la sooco oo la yiraahdo waa liitaan laangaab waaye ya in la yiraahdo maxaa keena oo aynu magacyo xunxun u bixino uurkoodii aanu murug gelino maxaa keenay ilaa qabiilka waa litacaarafu silatu raxim
iyo magti iyo guurkii iyo wax walbaa ku xiran xuquuqii waajibaad ayaanu nahay ayaa ku xiran ayaynu niri xuquuqii waajibaad ayuu qabiilku leeyahay laakiin maxaa keenay in lais sooco laishayb sooco dad walaalaheena inaynu xaqirno inaan dhahno waa gabooye inaan dhahno waa madhibaan waa laga roone waa eyle waa liitaan waa gun oo aan weelashoodii xataa ku cabbin aanan wax ku cunin guryahoodii gelin aynan salaamin ka guursanin oo aanu cayrino uurkoodii murug gelino ka yeelno dad liita ka qaadno kalsoonidii maxaa keenay waxaasoo dhibaato yaa keen war ma ilaahay iyo islaam baa dhib wada mise ibliis iyo shayaaiin اlinsi waljin garo diinta alle waa taa laakiin diinta ibliiska waa kan waxa dadka aynu ku fogeynay waa diin ibliis iyo caadi ibliis u kaalay xabiibkeeni salى اllahu alayhi wasalam haddaad moodaan inaan iska hadlayo oo aan maaragta iska hadaaqayo u kaalay xabiibkaagii salى اllahu alayhi wasalam waa ka uu dhahayo arbacun fii ummatii min amri اljaahiliyati laa yatrukunahuna afar caado afar dhaqan oo xunxun oo ibliisku leeyahay afar caado xunxun ayay ummadaydu ku dhaqantaa oo caadooyinkii iyo dhaqankii iyo diimihii ibliiskee waayadii hore ee jaahiliga uu u jireeyey afar dhaqan oo xunxun oo dhaqamadii ibliiska ayay ummadaydu ku dhaqmaysaa kana tegi mayaan wax walboo loo sheego ka tegi mayaan laa yatrukunahuna ficlu mudaaric ayuu ku cabirayaa waadna garanaysaan ficilka mudaaric dawaam iyo istimraar ayuu faa'ideeyaa wuxuu faa'ideeyaa waa wax joogta ayuu faa'ideeyaa weligood ka tegi mayaan weligood waa yani eed inooga imanaysa xabiibkeena salى اllahu alayhi wasalam wuuna eedeynayaa wuxuu leeyahay ummadayda 23 sano ayaan u daalayey xabiibkaa dhahay salى اllahu alayhi wasalam 23 sanaan u ooynayey u dadaalayey u ordayey la ii dhibay la ii ceejiyey mandheer madaxa laiga saaray aan u dhididayey qoraxi qabow igu dhacayey u safrayey u dagaalamayey dhiig aan u daadiyey halkaa la iiga jeexay ilig la iiga jebiyey ummaddii aan sidaa ugu dadaalayey aan wax baray mucalimiin iyo shuyuukh aan ka dhigay maantana oo la rabay dhaqankaygii iyo akhlaaqdaydii iyo raxmadaydii iyo wanaagaygii inay qaataan ayaa maanta waxay haystaan afar dhaqan oo caadadii ibliiska afar caadooyinka ibliiska afar dhaqan oo dhaqanka ibliiska ayay maanta haystaan oo ay ku dhaqmaayaan kana tegi mayaan ina lilah wa ina ilah dacwadaa eega uu inaga dacwoonaya xabiibka salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii baa naga dacwoonaya maanta salى اllahu alayhi wasalam arbacun fii ummatii min amri اljaahiliyati laa yatrukunahuna mana ka tegayaan waa laba kamidaan rabaa marka mawduuceyga ku saabsan waa alfakru fi اlaxsaab wاطacnu fi اlansaab in ay aabbayaal dhinta inay ku faanaan alfakru fi اlaxsaab aabbayaal baa lagu faanayaa laandheeranimaa lagu faanayaa culimadii iyo cuqaashii iyo aqoon-yahanadii waxay lamid noqdeen inta badan waxay lamid noqdeen caamadii anagoo ayaa la leeyahay war soomuuna dhihin xabiibka sal alay slam naga mid ma aha qofkii dhaha ana ee mu'miniinta iska saara soomuusan dhihin naga mid ma aha qofkii ana dhaha soomuuna dhihin salى اllahu alayhi wasalam in lagu faano qabiil waa tan koowaad caadada ibliis arrinkii jaahiliga ee ibliiska u jiray juhalada waagaanu diintu jirin waxaa kamid oo ay ummadayduna ku dhaqmayso aanay ka tegaynin in aabbayaal lagu faano in awowyaalo dhintay lagu faano in qabiil lagu faano laandheero layska dhigo laysdaaxuuriyo laysdheeraysiiyo cirkaa laysgeeyo sanka kor loo taago
ha iyo watacnu fi lansaab dadka kalena la yesakooda kaagiina inaad sare u yeeshid kaas kalena in aad yestid adiga ya kaagiina kor baad yeelaysaa kii kalena waad xaqiraysaa ogow ana aad leedahay anagoo reer hebel ah anigoo sidan ah ayaad leedahay kii kale waad yeesaysaa kaagiina waad saraysiinaysaa waa caado xunxun oo ibliiska rasuulkan uu nagu dacweynayo sala allahu calayhi wasalam ayib u kaale haddana sala allahu calayhi wasalam wuxuu maanta dhaar buu marayaa dadkan la kari la-yuhu u dhaaranayaa ummadan la kari la-yahay culimadeeda iyo caamadeeduba madaxdeeda iyo shacabkeeduba ya inta ibliiska raacday ee dhaqanka jaahiliga qaatay buu u dhaaranaya oo muxuu leeyahay layantahiyana aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina maatuu inamaa hum faxmu jahannam أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي كلهم بنو آدم كل الناس بنو آدم الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب wuxuu leeyahay layantahiyana aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina maatuu wallahi way daynayaan wallahi way ka tegayaan qowmkan ummaddan juhaladan maangaabyadan kuwan yaa xerta ibliis ah yaa kuwan way ka tegayaan aabbayaalo inay ku faanaan awowyaalo inay ku faanaan qabaa'il hore inay ku faanaan dhintay oo aboor wax ka waayey xadiidku muxuu ku yimid gaaladii hore ee juhalada ahaa ayaa waxay ku faani jireen 9 waalid 9 awoowe anagoo reer hebel oo reer hebel oo ay dhihi jireen markaasaa mid 9 ku faanay ya 9 gaalo ah mid ku faanay ya ayaa rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alayhi wasalam 9 kaasna jahanamay ku jiraan adiguna waad tobanaysaa aabba lagu faana awow lagu faana waa kaa ya ma wax lagu faanaa oday dhintay waayo hore geel badan ayaanu lahayn waxaa ka wanaagsan dameer ayaanu leenahay hadda oo aanu ku shaqaysanaa geel horoo dhintay taajirnimo horoo ku soo martay khayr hore muxuu kuu taraaya haddaad ku faanaysto oo aadan haynin qofka waa inuu ku qancaa xaaladda uu ku sugan yahay rasuulka ayna baraya islaamka ayna baraya xaaladda aynu ku sugannahay waa inaynu ku qanacnaa ilaahay baa noo dooray nolosha aynu ku jirno waa inaan ku qanacnaa shaqada aynu hayno waa inaanu ku qanacnaa halka aynu saldhigayno aynu soconno fadhino jiifano waa inaan ku qanacnaa cunada aynu cunaynaa waa inaynu ku qanacnaa mu'minku waa inuu noqdaa nin qanaaco leh waa inuu noqdaa oo qanacsan raalli ku ah wuxuu ilaahay u qadaray kaasuu ina barayaa islaamka marka wuxuu yidhi wallaahi way ka tegayaan kuwa aabbayaalka ku faanaya dhintay ama ilaahay agtii waxay ka liidanayaan xaara walwaalka ku rogrogaya xaarka sankiisa ku rogrogaya allah bal eega tilmaantaa qiimigeeda eega sida loo cabirayo kaa qabyaaladistaha ah ee qabiilka ku faanaya qabyaalada maaragtaa uurkiisu buuxisay cuush ku samaysatay ya eega sida ilaahay uu maaragta uu rasuulku u cabirayo sala allahu alay slam foolxumadiisa iyo qurunimadiisa urkiisa bal fiiri sida loo cabirayo ee xumadiisa kan ku faanaya awowyaalo dhintay ilaahay wuu ka tegaya oo wuu joojinayaa dadka oo dhan wuu simayaa waa walaalo wuu soo dhawaysan ama wuxuu ka hoos marayaa oo uu ka liidanayaa ilaahay agtii xaara walwaal xayawaan kale ma uunan soo qaadanin xabiibka sala allahu calayhi wasalam xaara walwaal buu soo qaatay xaara walwaalka waa xayawaanka yaree madow ee uun xaarka ku dhex nool ma rabo dhoobo inuu aado ma rabo inuu meel kala aado wanaag iyo udgoon ma ogola keliya wuxuu ku nool yaho uu ku naaxaaba xaarka iyo saxarada
raalliga ahaada magacan xaarka haddaan ku celceliyo waxaan rabaa in aan nacsiiyo oo aan u uriyo dadka qabyaalada laga kari la yahay cudurkan ina dilooday la ildaran ayaan rabaa inaan badbaadiyo aan u uriyo oo ay uga fogaadaan qabiilka sida xaarka looga fogaado marka waa xaar walwaal ilaahay agtii ninkan qabyaaladiista ee qabiilka ku faanaya wuxuu ka liidanayaa baa layidhi xaar walwaal ilaahay agtii hadduusan ka tegin xaar walwaalka waa xayawaanka xaarka ku nool xaarka intuu soo ururiyo ayuu wareejiyaa kubadbu intuu ka sameeyo ayuu rabaa gurigiisa inuu geysto eeg markuu rogrogayo ilaa ma qaadi karee wuu rogrogaa gacmaha iyo lugaha ma isticmaala lagu leeyahay xaguu ku rogrogaa afkana kuma rogrogo iyo bishimaha bal eeg dullinimadiisa iyo qurunnimadiisa sankii wax laga urinayay ayuu intuu xaar ka saara ayuu maaragtaaye ku rogrogayaa wuu ku raaxaysanayaa xaarkaa caraf u ah eeg horta dullinimada kaas ayuu ka hoos maraya ayaa lagu yidhi maxaa tusaalahan maxaa loo keenay bimacnaa xaarkan la rogrogayo waa qabiilkii waa qabyaaladii waa wixii sida xun loo isticmaalayay dadka lagu fogeynayay dadka lagu xiriirinayay dadka maaragtaayay ee garabation iyo balaayo qurun waxa dadka lagu kala gey qabyaaladii waa xaarka waxa rogrogaya ee sanka ku rogrogayana waa dadkii ku dhaqmayay qabiilka qabyaalada samaynayay allah ilaahay agtii kaa qurunka ee xaarka sanka ku rogrogaya waad ka liidataa waad ka hooseysaa aakhira haddaad ilaahay agtii ka hooseysid waxaad ogaataa qabyaaladiistow kaa qabiilka sida xun u isticmaalayow dadkii ku kala geeyow adduunka aakhira maaha adduunkana waad ka liidataa xaara walwaal waxaad tahay xaara walwaal war isaga taga ayaa la leeyahay dacuuha fa inahaa muntina ka fogaada haddaad sheekh tahay caalim ka fogow caamo tahay ka fogow culimo tahay ka fogow caaqil tahay ka fogow oday dhaqameed tahay ka fogow qabiilka ha ku xukumin dadka qabiil ha ku xukumin dadka qabiil ha ku soo dhaweynin dadka qabiil ha ku xiriirinin dadka qabiil ha ku jeclaanin dadka qabiil dadka islaam ku jeclow ilaahay dartii u jeclow dadka wanaagga ku jeclow iimaankii caqiidada ku jeclow iimaanka ku jeclow ee caqiidada iyo saalixa camalka wanaagsan ee la samaynayo ku jeclow dadka camalka saalixa ku jeclow taqinimada ilaahay ka cabsiga ku jeclow dadka oo ku soo dhaweey oo ku xiriiriyo wax ugu qabo wallahi way ka tagayaan dadka qabiilka ku faanaya awowyaalo dhintay ku faanaya wallahi inay ku faanaan awowyaalka way ka tagayaan ama ilaahay agtii waxay ka liidanayaan xaara walwaalka xaarka sanka ku rogrogay war maxaad uga baahan tihiin qabiil iyo qabyaalad in allaha qad adhaba cankum cibiyata aljaahiliyati wa fakhraha bilaabaa ilaahay waa idinka tagsiiyey waa idinka qaaday heeriyadii qurunka ee ibliiska idin saarnayd ilaahay waa idinka tagsiiyey cibiyata aljaahiliya isla weynidii iyo kibirkii iyo faankii jaahiliyada ilaahay waa idinka tagsiiyey iyo aabbayaalkii lagu faanayey uma baahnidiin kibir uma baahnidiin isla weyni uma baahnidiin maaragtaaye aabba inaad ku faantaan awow dhintay ku faantaan laandheeranimo uma baahnidiin wax maqla soomalaay wax maqla uma baahnidiin wallahi ilaahay baa dhahaya wuu idinka tagsiiyey eeg waxaa lagu tilmaamay waxaynu ku faanayna cibiyata aljaahiliya waagii diinta aanu jirin ayay diin u ahayd gaalada u ahayd insaanku ay u ahayd qabyaalada oo ibliis baa hogaaminayo wax barayay laakiin maanta islaam baa yimid diin baa yimid محمد الأمين صادق الصادق المصدوق يا محمد أدقوني أيا صلى الله عليه وسلم دين لينو سوليبي خير خلق الله أيا دين وناكسن يا أول اسكو حريريو أوركن الرحمد إيو فرحات إدقنا شقلينيسا نحاريسا أيا لينو سوليبي وحوليه هيدتك لبي أكلا بحين هدا إنما هو مؤمن تقي
أو فاجر شقي هذا لك ربحيا ميزان كان قفل بوا إنه إسسارة كل جين رجين إدو مركينا يركينا إيوين كينا وإنه إسسارة داد كمان تلابو وكلا بحي ليها فرص Soomaaliya dhagaha fura qabiil ba in diloodeen dhagaha fura oo laabta ii duleeliya aan geliyo daawadan aan idinkaga sida Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf sallallahu alayhi wa sallam dadkii isku daaway daawadan wallahi waa guuleysteen jannatul firdaws ku jiraan dadkii diiday fujaarta fusaaqda ahana cadaab ayay iblis kula jiraan dadku waa labo inama huwa mu'minun taqi mu'min taqi oo aan qabiil dadka ugu faanaynin ka kalena aan duraynin ya mu'min taqi oo dadka diinta ku xiriirinaya akhlaaqda ku xiriirinaya islaamnimada ku xiriirinaya iimaanka aqeedada ku xiriirinaya amalka saalixa ku xiriirinaya mu'minun taqi aw fajirun shaqi ama fajir mujrim ما رتاي عاصي فاسق يا او منافق dadka labadaas oo kala bixin oo waxa loo sheegay caawo dhan wadaadadu ay la qaylinayaan rasuulku ilaahay ay la qaylinayaan aanan maqlaynin haduu maqlana dhagtan ka maqlayee tanna ka sii bixinaya caawo dhan waxaan la qaylinayay qof maqlayo haddana qabiil iyo qabyaalad haysta oo ku dhaqmaya ka warama qabiil dad ku fogeynaya oo ku soo dhaweynaya qabiil dadku wax ugu qabanaya bal ka warama dadka waa labo ilaahay waa idinka tagsiyey jaahiligi ay kibirka ifaanki aabayaalki iyo qabiilki lagu faanay dheernimadii ilaahay waa idinka tagsiyey uma baahnidin taas diin ibliis ay ahayd diin allah timid dadkii labay u kala baxeen mu'min taqi iyo faajir shaqi ka tahay marka adiga ما مؤمن كاتهاي هذا الإلهي قادنية مس فاجرك جوابت إذن كان إذن دينا يا مرك وأنا قررنا إنسان جوابت وقف والبوا وعد هاي الناس كلهم بنو آدم يا دتك أردن وهر بني آدم علمه آدم وآدم خلق من تراب لما كلا سرية آدم نوح لقى أبوري محي وحلقى أبوري عرى لقى أبوري والله ليال برنامج كانوا رنتي واجبو maxaa lagu kala sareeyaa marka hadii la yiri qabiilka in la isku aqoonsado oo riximka lagu xiriiriyo aqrabada iyo qaraabada xigtada lagu xiriiriyo ayaa ilaahay u yeelay oo uu noogu keenay oo xuquuq iyo waajibaad inaan ku gudana ayuu ilaahay qabaa'il iyo shucuub nooga yeelay maxaa la isku xiriiriyaa hadii la yiri qabiil lagu kala sareeyo maxaa lagu kala sareeyaa waxa lagu kala sareeyaa waa amalka saalixa وأوامرت الإسفريو إيو نواهيد الإسكاعلينيو عملك صالحة أيا لغو كلا سرية وحكا لغو ما كلا سرية سو عمل كان صالحة وكأل لي هاي قبائل وحاني ذكرية لشعوب لتعارفوا لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحا إلهي أكتي كو كرامة بدن كو فضل بدن كو سرية لان ديرا الدون لان ديرا كو أوامحي أتقاكم كينو وعبسد بدن وركا قادنية وركا إلهي يا رسول كيسا قادنية إسلامك سنبا أقول لقمية كاس رسولك مركي كلا لويدي صلى الله تسعيد بيهايد لكن رسولك مركي لويدي صلى الله عليه وسلم أولي يري من أكرم الناس دتك يا أكرام بدن يا أوناكس أفضل بدن يا أدونك أسرية وحو يري أتقاهم أتقاهم كود وعبسد بدن كود وعبسد بدن وإلهي كبقية inuu nin walaalkii fogeeyo qabiil ku fogeeyo ka baqaya inuu murug geliyo qalbi walaalkii oo uu qabiil ku murug geliyo liido walaalkii ka baqaya inuu walaalkii liido ka baqaya inuu walaalkii maaragtaaye uu dheereeyo oo uu cayriyo ka baqaya atqaahum kan ugu cabsida badan Allah inaga yeela kuwa baqa Allah inaga yeela kuwa cabsada Allah inaga yeela waad garanaysan walaalayaal qissa dhaba oo dhacday magaalada Madiina ka dhacday waagii rasuulku uu joogay sallallahu alayhi wasallam nin reer muhaajir markii laga soo qaxay Makka waxa la yimid Madiina diin baa lala cararayay lama qaxaynin
hungurina lama raadinaynin lamana tahriibaynin dad dhaqanoo ganacsatay ahaayeen degan oo xasilan laakiin diintii ayay ku gudan waayeen halkaa waa laga soo kaxay waa soo qaxeen ilaahay baa u ogolaado yiri diintiina la qaxa madiina la yimid dadkii soo qaxay waxaa la yiraahdaa muhaajiriin dadkii kalena waxaa la yiraahdaa loo yimid magaalada madiina ee ganacsatada ahaa ee soo dhaweeyay muhaajiriinta waxaa la yiraahdaa ansaar magaalada la wada degay markaas waxaa bilowday nifaaq ila magaalada de waxa degan waa dad oo gaala deganid markii hore dad awood lahaa deganaa yahuud iyo carab kala deganayd marka waxaa bilowday marka nifaaq ayaa bilowday ilaa dhulkoodii baa la yimid diinna waa timid rasuulkana dowlad buu dhisay waxaa dhacay nin reer muhaajir oo maka ka yimid iyo nin reer ansaara ayaa xoogaha ibliis baa deeyaa ficilkiisii ku taabta uurkooda galay waxbaa la isku qabsaday beer iyo ceel iyo meelaha markaasaa laysu habar wacday qof walba qabiilkiisii rasuul looma tegin kitaab ilaahay looma noqonin markaasaa la qaylikii reer muhaajira wuxuu yiri waa tolaayey aaway qabiilkaygi yaa lalmuhaajiriin aaway dadkaan isla soo qaxnay aaway tolkaygii aaway reerkaygii xigtadaydii aaway markaasaa saafihii hormiyaa lasoo qaatay kii reer ansaarna muxuu sameeyey war waad aragtaa waa ninkan tolkiisi u dhawaaqay war adigana tolkaagi u dhawaaq waa caadi ibliis markaasuu isna yiri yaa lal ansaar war aaway reer ansaaray kaalaya markiiba rasuulkiibaa dhex yimid wuu kala celiyey waa sida laynaga doonayo idaylkan marka mid ardaal ah faajir ah caadi ibliis ku dhaqmaya ibliisku hogaaminayo marka uu reerkiisii u dhawaaqo yaa uu dhaho in la yiraahdo war ukaadi war waxaan waa dhaqan ibliis waa caadi ibliis jooji tolkii qaraabada jooji kulligiin muslimiin baa tihiin yaa muslim dhaha yaa muslim dhaha oo u dhawaaqa muslimka walaalaha u dhawaa laakiin qabiil iyo tol waa caadi ibliis markaasuu yimid rasuulka sal alla alay wasalam markaasuu yiri wuu la yaabay waa saxaabadiisii hadduu laakiin tababarayaa diintuna bilowgay ahayd markaasaa wuxuu yiri abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum allama dacwadii jaahiliga ayaad u yeeranaysaan oo aad leedihiin yaa tollaayey oo aad leedihiin anoo maanta idin dhex jooga anoo idin dhex jooga muxuu ka wadaa bimacnaa diinteeniyo taalla qur'aanki iyo kitaabki iyo sunadiyo dhexdiina taalla oo waa wixii lagu kala baxay laba walba oo isqabsata kii kala saarayay kitaabka lagu kala baxaa u celiyaa la yiri ilaahay rasuulkiisa bimacnaa kitaabka iyo u celiya sunnada war kan waayo kan loo qayliyo kitaabkaa loo qayliyaa oo sunnadaa loo qayliyaa iyadaa lagu kala baxaa qabaa'il iyo ma aha tol kan kitaabka wuu ku badbaadinayaa xaqaagiibuu ku siinayaa dhaalimkan wuu qabanaa madluumkan wuu u gargaaraa laakiin qabaa'ilka maya qabaa'ilka waa dhaalimiin kulligood waa dhaalimiin dhiig inay daadiyaan maahane dadka uurkooda murug inay geliyaan inay kala fogeeyaan kala cayriyaan la qaxo maahane xal kale ma hayaan qabiilka ay dadka ma aragtaaye qabyaaladu wax kale ma hayso abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum maanta anoo idin dhex jooga miyaad u qaylisa dacuuha fa inahaa muntina ka fogaada ayuu leeyahay waa wax uraya qabyaaladu way uraysaa ka fogaada soomaalay ma ka fogaanaa qabyaalada ma ka fogaanaa aynu guulaysane ma ka fogaanaa qabyaalada intaasu qaylinaya xabiibka sala allahu calayhi wasalam war aaway ummadii rasuulka aaway ummadii muxamed sala allahu calayhi wasalam aaway culimadii xambaartay dhaxalkaa quruxda badan aaway alculamaau warahatu alambiyaa waa maxay culimadan xataa la safan qabyaalada qabiilka oday dhaqameedyada lasoo safanaya masaajidadii dadkii qabyaalada baraya waa maxay culimadan maaragtay la safan dulmiga la safan waa maxay
miyuusan rasuulku dhihin miyaydaanna barin culimooy miyaydaanna barin oo aydan nooga keenin xabiib sala allahu calayhi wasalam madarasadiisa miyaydan nagu barin unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman ya walaalkaa u gargaar dhaalim hadduu yahay iyo hadduu madluum yahay madluumka waa la gartay kan laga gardaran yahay waaba loo gargaaraya laakiin kan wax gardaran walaalkii dulmaya see loogu gargaaraa gacantiisaa la qabanaya waa loo digayaa waa loo sheegaya waxaan qitca min annaar inay tahay dulmigan in uu cadaab ku galayo ya waa in la baraa waa in loo sheegaa waxaan ka gaabinay runtii wacyigelintii waxaan ka gaabinay haddaan maaragtay culimo nahay aan arday nahay tulaabulcilmi nahay aan nahay maaragtay dadkii rasuulka dhaxlay haddaan nahay ducaadii xaqiiqatan adduunyan raacnay xaaba adduunya inaan ururino xaaba adduunya inaan kaydino inaan iyadoo un daba soconno ayaa runtii aan aadnay waddo khaladaan qaadnay war dacwad ha loo soo noqdo diintii ha loo soo noqdo dadka ha la wacyigeliyo har iyo habeen ha la qayliyo allah nagu anfaca diinta hadalladaa faraha badan ee diinteenna naseexada addiinu nasiixa allah nagu anfaca kuwii naseexay u noqota allah inaga yeela soomaali meelay joogta qabyaalada allah ka qaado soomaali meelay joogta qabyaalada allah ka qaada soomaali meelay joogta qabyaalada allah ka qaada diintii caqiidada allah u soo celiyo mar labaad 1,000 jeer halka aan caawa idinka maanta idinkaga soo qaylinayaa waa Kismaayo Kaafiso Kismaayo Kaafiso weeyaan waa caasimada Jubbaland ilaahay iyadana barwaaqo ha ka yeelo ilaahay aaran ha ka yeelo abaarta ha ka qaado nabad ha ka yeelo colaad ha ka qaado Soomaali meel walbo aan joogno ideelkeen uli diirkeed Allah inaga yeelo qalbi qof kaliya Allah inaga yeelo culayska Allah qaado albaabada khayrka Allah inoo furo Soomaali meel walbo aad joogtaan oo walaalkeen Maxamed Sheekh Ibrahim Kenyawi aad baan idin jecelahay waxaan la qaylinayo waa wanaagiina wanaaga aynu badino aan soo duceyno astawdicukum Allah alladhi la tadii'u wadaa'i'uhu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh